waxaa maanta xariga laga jaray masjidka Al-Raxma ee tuulada Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe. xariga jarka masjidka ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo diin, cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxa garadka iyo wadaadadii ka hadlay madasha ayaa si weyn ugu mahadceliyay Ilaah ka sokow Xaaji Saciid oo masjidkan waqafay. odayaasha ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay masjid weyn oo jamiicada wada deeqa, balse baahidaasi maanta laga baxay, waxayna halkaasi ka jeediyeen khudbadooyin kala duwan oo u badnaa mahadcelin. maanta anigu wacdi ma aqaan waxa sawaayo isu rugsaday farxad maanta taala magaalada taala intaanoo islaam horteeda ka muuqata iyaan hortaan ku faraxsanahay dhamaantiin. waxaanu maleeyahay inta islaam oo na maqasha amba aragto ka fiirsata dunida ka fiirsata inay sidaan ugu faraxsanahay iyo ugu faraxsanayn saasana maleeyahay. intaas ka bacdi waxaa horta u mahadceliyayna Ilaaha noogu soo ireeday adoonkaas walaalkayna oo asaga raxmadaas iyo soo garshay masaajidka inuu ku suubsado oo ku dhiso qalbigiisa ku beeray. Ilaahaas horta uga mahadceliyna asagana waxaan leenahay kii ku dhurooba Allah ka dhigo. anigu ma aqaan wacdina uma roogsan waxba kala tooda aqoonana uma roogsan, laakiin waxaan leeyahay ha dhuroobo wiilka noogu soo gacan dhiibay inta nagu siiyay masaajidka noogu dhisay oo Ilaahay maalka uu ku dhisana siiyay qalbigiisana oo farxadaas inuu ku dhiso oo ka abuuray yaan leenahay ha kugu sii wartaan leenahay waa u duceeyna markii ugu horeysa. haddee saas intay ay hadayo aan uga gudbo waxaan leenahay ununkuna waa in wixii ka dhinaada dhameystirahaaya oo isku xiran oo Ilaahay u naxariisto islaamka dham oo dunida caladeeda ku noolna Ilaahay u naxariisto Allah naga dhigo anankana khaasi caam Allah noo dirjiyo masaajidkana kii lagu cibaadaysto Allah ka aqbalo islaamka oo dhan Allah ka dhigo. iyaalkay Saciidana waxaan leenahay adiga iyo awlaadaada iyo waalidiinkaagii iyo intii qaraabaha aad ka dhalatay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay Allah ugu dib dhaafo. islaamku meel alle meeshuu joogana waxaan Ilaahay ka rajaynaa oo ka rabnaa oo uga amarta ugu duceeynaa dib dhaaf iyo ku dayashasana ninkii maal Allah siiyo oo qalbigiisuna isu maarta qoyan yahay sida Saciid oo yeelo kale kuwa yeelo Allah ka dhigan lana adduunada guudkeeda dadka ku nool. intaas ka bacdi waxaan leenahay Saciid oo dhurow dhaqan adduunyada kii ugu dambeeya nago oo ugu wanaagsan kii uga bax dhaqan wanaagsan Allah ka dhigo. waxaan ku dhahaynaa kugu duceeynaa awlaadaada iyo aradaada iyo waalidkaaga iyo walaalahaaga iyo qaraabadaada iyo jiiraankaaga iyo cashiiradaada kuwa jannada ku garbootama anaga isku garbiya Allah idin ka dhigo. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. anigu wacdi sheegi ma aqaano culimada sheegtay Ilaahay nagu anfaco. waxaan se sheegayaa wadaadka xaajiga ah oo beedkan Ilaahay noo dhiso noo qurxiyay in Ilaahay ajir dheeraad uu siiyo oo akhriya adduunyaa annaan u duceeyno ha loo duceeyo markii la yiraahdo inaan dhahno kulligayna aamiin aan dhahno. xaajigan ma taqaanaa masjidkan ma taqaanaa loo dhisana Allah ka ajir siiyo. aniga wax kale ku dirima ununkana ma taqaanaa wixii la faray Allah nagu hanuunsho. adoomka xandadiisa gelshay waa mahadsan yahay awlaadiisa na Allahu barakeeyo iibaankiisa Allahu barakeeyo. ducada hore Allah aqbalo midda dambana Allah aqbalo gebigaanyo dhanna Allah isku kaanya cafiyo. wax kale oo aan sheegaya ma jiraan gebigaanyo dhan waa wada faraxsanahay. muslimiintii masaajidkan ku duka jirtayo macnaha deegaan ahaan nahay waana ku faraxsanahay. dadkiisa iyo deeqdiisa adoomkaas noo dhisay in Ilaahay barakeeyo ayaan macnaha ugu duceeynaa Allah inuu barakeeyo Allah inuu barakeeyo. dhanka kale Xaaji Saciid ayaa sheegay in mar uu soo booqday tuuladan uu arkay in dadku ay ku tukan jireen masjid yar oo jiingada
kadibna uu qorshaystay inuu waasiciyo una bedelo mid dhammaan dadka tuulada wada deeqa si wada jiraan ay ugu tukadaan. marka waa mudantiin masaajidku waa la dhisay ilaaha dhisay adoona ilaah idin soo adeejiye waxaa la rabaa in masaajidka wax lagu daro ma in wax laga qaado maaha kitaabkan waqaf waay igarkayga u geysaa ma aha in masaajidka lagu soo daro waay ani waxaan fasaxay in qof alla qof karo in wax ku soo darsan karo ilaahay ma dheen ana dhameystirtay hadduu ilaahay yaraan dabaqan ana ka dhigaayo haddaan idinka arko ana dabaq ka dhigaa ilaahay idinkiisa hadduu ilaahay caf cumri siiyo ma kasino inta dariiqada la fiirsanay waxa fiican kitaabka cilmiga lagu barto meeshan quraan waa keenay kitaab cilmi waa keenay ahkaam waa keenay fiqh iyo nusuus waa keenay wixii dhama waa keenay wixii dhamanna ana diyaar inaan keeno